ربنا ارحمنا وحقق سؤلنا واجمع الكل بدار المتقين. haddaba walaalayaal qodobka koobaad aan doonayo in aan u soo jeediyo walaalaha baraha bulshada isticmaala inta badan baraha bulshada noocyadiisa kala duwan waxa uu yahay qodobka koobaadi waxaad ogaataan walaalayaal baraha bulshadu inuu yahay midi amba seef laba af leh afkaad wax ku goosataaba uu wax ku goyn doono laakiin labada afi waa mid wanaagsan oo khayr leh oo aad ka faa'iideyso adduun iyo aakhiraba midna waa mid shar iyo mafsado leh adigana ku fasahaadinaya mujtamaca iyo ummadda kugu hareeraysanna runtii fasahaadinaya waxaad ogaataa baraha bulshadu in khayr iyo wanaag labadaba aad ugu tagayso haddii aad YouTube-ka aad gasho iyo haddii aad Facebook-ka gasho iyo haddii aad waxa weeyaan meelaha la midka Twitter-ka iyo meelaha kale la midka haddii aad gasho intaba waxaad ogaataa in dawo iyo sun labadaba ay dhex taalo haddaba adiga ka muslim ahaan haddii aad tahay gabadh iyo haddii aad tahay wiil labadaba waxa aad ku dadaashaa markasta waxa ku anfacaya waxaad ku dadaashaa in aad markasta u kacdo dhanka wanaaga waxaad markasta ku dadaashaa in aad daawato amba aad maqasho wax adiga ku anfacaya berri qodobka labaad ee aynu isku baraarujinayno iskuna waaninayno waxa uu yahay walaalayaal in aynu ka fogaano iskana ilaalino labada shay ee loo yaqaano ash-shahawaat wash-shubahaat shahawaatku waa maxay waa macaasida waa waxyaabaha naftu ay jeceshahay laakiin hagardaamadaada iyo guul darradaada iyo ba'aaga ayaa ku jira waxaad ogaataa mar kasta oo naftaada aad ku furto daaqadaha iyo albaabada sharka iyo macaasida in aad naftaada gubtay oo halaagtay waxaanad ogaataa qalbigaagu in uu kaaga baahan yahay ilaalin fara badan لأنه meesha kaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonka uu ka eego Ilaahay ma eegay quruxdaada iyo qaabkaad u taalo kaliya Ilaahay waxa uu eegaya amalka aad qabato iyo falka aad samayso iyo qalbigaaga waxa ku jira hadaba maadaama qalbigu uu yahay meesha kaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu adoonka ka fiiriyo waa in aynu ku dadaalno goobta iyada maxalka isaga meesha iyada oo ah qalbiga in aynu nadiifino oo aynu ka dhigno meel aad u wanaagsan hadaba shahawaadka waxyaabaha iska ilaalin karta waxa kamid ah adigu shakhsiyan marka hore in aanad raacin oo aanad dabagelin xumaana oo aanad baadbaadin hadaba aan ka imaado qodobka aan tilmaamay ee ah ash-shahawaat shubahaadkanu imaado shubahaadku way ka dhib badan yihiin shahawaadka لأنه شهوات waxa laga yaabo macaasi aad samaysay inaad ka toobad keento kadibna farahaad ka qaado laakiin shubahaadku waxay xiriir la leeyihiin aqoonta qofka muslimka ah waxaanad ogaataa baraha bulshada ee ku jirto gaal iyo muslimba in ay ku jiraan in qof kastaaba uu ku soo ritay oo soo dhaxdhigtay waxa isagu xaq u arkay iyo diin iyo mabda saxsan inuu yahay sida awgeed ayaa waxa laga rabaa in aanad wax kasta ana daawanin oo noqoto qof markasta ku jira feejignaan iyo xadar oo aad ka digtoonaato wax kasta oo la sheegayo oo halka lagu soo gudbiyo in aanad rumaysanin haddii aad tahay qof diin leh oo aqoonta si fiican u yaqaana taas biidnillah subhanahu wa ta'ala waxay sabab kugu noqon doontaa arinta noocaas inaanay kugu dhicin hase yeeshee markasta oo aad gelayso baraha bulshada inaad Ilaahay ka magan gasho macaasida noocyadeeda kala duwan mid la arko iyo mid la maqla labadaba sidoo kale Ilaahay inaad ka magan gasho wax kasta oo waxa weeyaan aqoontaada ka muslim ahaan ku keeni kara dhibaato iyo waxyaabo waaweyn oo diinta kamida muqaddasada in shaki laga galiyo labada arinba waa laba qodob oo qofka muslimka ahi ay u baahan yahay runtii in uu aad iyo aad uga feejignaado
Mm-hmm.